qodob kale isaguna jira oo aad u daruuri muslimiintu maxaa dib u dhigay waxa weeyaan dacfu alquduwaati fi alculamaai waadducaa tayaarka ayaheed inay hor istaagto yaa hor istaagi waa culamadii iyo culamadii iyo ardaydii dalabatulcilmiga oo iyagiina aan quduwaat lagaga daydo caalamka islaamiga maanta aad u daciif berigii hore culamadu iyagaa hogaamin jiray iyagaa dadka horkici jiray laba tusaale saddex tusaale oo qadiimana haddaan idinka sheego iyo qaar mucaasir haddaan idinka sheego waydin yaabi doorkii culamadu mujtamaca muslimka ay ku lahaayeen iyo maanta halka ay marayaan waxaa la sheegay cizi bn cabdisalaam waa sheekh shaafici ah culamadu waxay u bixiyeen sulطaan alculamaa baa loo bixiyey reer qaahiruu ahaa berigaa hore markaasaa waxaa la yidhi dowladdiisi xilliguu joogay dowlad mamaalik la yidhaha baa haysatay khasnadii dowladdaa kacday khasnadii baa kacday lacag baa la waayay markaasaa dowladdii waxay tihi xilligii jirtay cizi bn cabdisalaam baana sheekha qaahiro markaa ah waxay yidhaahdeen sheekhow ummaddii baa la yidhi waxaanu ku saaraynaa cashuur dheeraada muks baa diinta la yidhahdaa cashuurta dadka cashuur dheeraad oo la saaroona bixin karayninoo xaq aan loogu lahayn la saara nebigu wuxuu yidhi ka xun gabarh tumatay lacagtay qaadatay xadiis saxiixu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalam cashuur baanu saaranaa dhaafaa layaa laga soo qaado cizi bn cabdisalaam baa isugu yeedhay madaxdii mamaaliik bay ahaayeen wuxuu yidhi idinku markii hore askar muslimiinta loo soo iibiyey si aad ciidanka muslimiinta u noqotaan baad ahaydeen kadibna xukunkii baad ku boodeen oo xukunkii baad qabateen weli waxaad tihiin hantidii muslimiinta inteedaan muslimiinta jeebabkooda baaran idinku waxaa idinku waajibay horta idinka inaan suuqa nikhaasa idin geyno oon idinka idin iibino xoolihiina idinka soo baxa ayaanu khasnada dowladda dib ugu celinaynaa maalintuu fatwadaa soo saaray ayaa culammadu waxay isku raaceen inuu sulطaan alculamaa inuu yahay hada waa qadiim sheekh ibn baaz oo qariib ah hadda wadaad sacuudiga mufti u ahaan jira ayaa xilligiisii isagana la soo saaray cashuur la yidhi ummadda hal la saaro warqadii baa sheekha soo gaadhay sheekh ibn baaz warqad buu qoro sultaankii ninkii magaalada haystay buu u diru yidhi dadku ma bixin karayaane ka daa warqad buu ugu soo jawaabo wuxuu yidhi mushaharkaan ku siiyo cashuurtaasaan ka aruuriyaa buu yidhi macnaha saa ila hadashay buu ibn baaz yidhi haa wallaahi inaanan aniga adigu gabalku inoogu soo baxaynin aniga adigu inaynu magaalo wada joogaynin buu yidhi ibn baaz halkii buu ka lugayey aroortii culamadu waxay leeyihiin magaaladii oo dhan sheekh ibn baaz bay raacday mashat macahu waaligii baa loo sheegay war sheekhow yaad xukumi meeshiiba ciidima hadhine markaasuu ka daba cararay sheekh soo noqo ilaa aad timaadid buu soo noqon maayo meeshaan joognan oo halkii buu ugu tegey cashuur dambe ma jirto dhibi ma jirto waynu heshiinaynaa ummadda soo celi sheekh ibn baaz waa la soo noqday markaasaa dowr alculamaa alcaamiliin alrabbaaniyiin sheekh azhari ah culamadii azhar ahaa raximahum allahu jamiica ayaa boqor fu'aad baa casumay iyada oo masarna gaajoonayso gaajo jirto abaaraha ninkayna haysto oo kale abaarahan oo kale jira markaasuu sheekhii wuxuu soo galay boqorkii iyo ubadkiisii iyo wasiiradii iyo dee cunaya wax maxay dee markaasay yidhahdeen sheekh kaale bismillah ha nala taataabo markaasuu yidhi dhiiggii muslimiinta ayaad cabbaysaan buu yidhi masarna way gaajoonaysaa idinkuna waxaanaad dhiiggan waa dhiiggii masaarida buu ayaad jaqaysaan buu yidhi malik fuaad baa intuu qoslay baa yidhi yaa mawlaana daa mujdam dii ismaha fatta afkayga masaarida dii ismaha fatta waa isku dhex karaskana waa cunna fatta la isku dhex karaska waa fatta war waa alaab buu yidhi dhiig maaha kaal xaggaaga ka cun buu yidhi iska daayo sheekh intuu cadhooday baa la yidhi sheekh intuu cadhooday bariiskii iyo wasladii hilibkii meesha yaalay intuu cadtoobtay oo u tuujiyey ayuu bifadli illaahi wa qudratii dhiig ilaahay ka soo dhaadhiciyey markaas dhiiggii muslimiinta aad jaqaysaa buu yidhi markaasaad leedahay xalaal baan cunaya ilaahu way ku xidhan weerdhoodana ilaahay weer dadka gasha ahayd bay culamadaasi hayaan laa taakhudhum fi llaahi lawmatu laa'im hebel baa la hadlay iyo hebel baa u cadhooday iyo cidna mushaarka bay qaadan jirin xasha lilah dowr alcaalim walculamaa muslimiinta halkaa waxaa dhigay culamadii muslimiinta iyo ducaadii oo
iyaguna qudwaadkii ummadda horkici lahaayeen aan booskoodii iyagana aan maxay toolay aan qaban